السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كورونا فيروس يشبه القيامة. waxaan rabaa maanta kelmad yar oo kooban inaan ku sameeyo corona viruska adduunka ka dhacay, adduunkana walwalka iyo wareerka ku abuuray, cudurkan rabbi keenay, ummaddiina camimay. waxaad moodaa uu dhinacyo badan ka shabahaa qiyaamada. tusaale markaan idhaahdo qiyaamada waxaa kala cararaya dadkii is yaqiinay, waxaa kala cararaya qoyskii, waxaa kala cararaya intii qaraabada ahayd. rabbi wuxuu leeyahay yawma yafiru almar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniihi likulli imri'in minhum yawmaidin sha'nu yughniih. waa maalin ay kala cararayaan walaalku ka carari, ninku xaaskiisii ka carari, aabbaha iyo caruurtu kala cararayaan. cid waliba way kala carari sababtoo ah wax ka weyn oo kulli wada mashquuliye ayaa yimid. maanta walaalayaal waxaa la arkay isbitaaladii oo dadkii qaraabada aan la isu daynaynin. qof dhalay 10 caruur ah oo keligii ku dhimanaya meesha la yidhaahdo isbitaalka gudihiisa ku dhimanaya, oo caruurtiisii bannaanka ay taagan yihiin, oo qof u taga la waayay oon loo sii daynaynin. qof u dhowaanaya xitaa kan bannaanka joodila kaale u tag, waxaa laga yaabaa naftiisu u baqayaa. kii gudaha ku jirayna dadkiisii waa rabaa, wuxuu leeyahay maanta ma anigoo keliya baa dhimanaya. wuxuu rabi lahaa qof waliba maalinta waalidkii dhiman, aabbiyo hooyo, inuu madaxa hayo oo dhabtaada ay ku dhintaan oo adigoo kor fadhiya ay naftu ka baxdo. laakiin tii maanta waa la waayey. waa maalin marka dadku kala cararayo. waa marka labaadee qof walba qiyaamada waxaa la yidhi waxay dadku isku furan lahaayeen wixii ay haystaan. xitaa dadka aan iimaanka lahayn, oon ahlu iimaanka ahayn, oo kufarada iyo gaalada ku dhintaay, waxay rabi lahaayeen adduunka waxa yaallo oo dhan inay dhaafsadaan si iyaga maanta ay u badbaadaan. coronavirus maanta qofka adduunka ugu xoolo badan hadduu isaga ku dhaco, ma suuragal ma tahay inuu xoolihiisa isku badbaadiyo oo isku furto? suuragal ma ah. waa qiyaamada ayuu dhinacaana ka shabahaa. dhinac kale qiyaamada wuxuu ka shabahaa coronavirus. wuxuu kasoo bilowday wadanka China, ayuu kasoo bilaabmay Shiinaha, wuxuuna marayaa 5 qaaradood ee adduunka. inta dowlad adduunka ka jirto oo dhan ayuu taqriiban dhammaystiray. adduunka wax yar ma ogi, inta kale waa gaaray. sidaas oo kale qiyaamadu waxaa jira rasuul ku sheegay calaamaadka qiyaamada oo 10 calaamo oo waaweyn ah, calaamaatul kubra la yiraahdo. waxaa kamida naar ama dabbaa kamida. dabkaasoo kasoo kacaya Yemen, dadka soo daba soconaya, habeenba meesha baryaan kula baryaaya, kadibna meesha la isugu imaanaya carasaatul qiyaama, banaanka la isugu keeni bay marka dambe wada keeni doontaa. wuxuu ka shabaha marka qiyaamadii inuu meel kasoo bilowday, adduunkii oo dhanna marka dambe u wada gaadhayo. wuxuu ka shabahaa qiyaamada coronavirus. maalinta qiyaamada rabbi wuxuu sheegay waa maalin qof walba uu halmaamayo wuxuu ku fikirayay. hooyadii caloosha ilmaha ku siday, caloosheedii bay taaban oo maran, gooruu ilmihii ka baxay ma taqaano. tii nuujinaysay ilmaha saarta loo jecel yahay, meel uu ku dambeeyey cunugaagii, wiilkaagii iyo gabadhaadii lama yaqaana qiyaamada. yowma tarawnaha tadhalu kullu murdacatin cama ardacad watadacu kullu daata xamlin xamlaha watara nnaasa sukaara wamaa hum bisukaara walaakina cadaab allahi shadiid buu rabbi yihi subxaana wa tacaala. sidaasoo kale coronavirus adduunku maanta wuxuu ku fikirayay oo dhan meesha uu ka baxay. away istiraatiijiyadii iyo balaankii la dejinayo, kuwii ahaa siyaasadda, kuwii ahaa dhaqaalaha adduunka, kuwii ahaa tacliimtii waxbarashada, shirarkii iyo mu'tamaraadkii waaweynaa ee dawligaha, away xafalaadkii waaweynaa ee la dhigi jiray oo dadkii muusikada iyo heesaha iyo adduunka laisugu imaan jiray, away wixii oo dhan. hal ruux oo ku fikiri maanta maaragtay shir adduunka laga qabanayo, hal qof oo ku fikiri maaragtay waxa dhaqaalihii iyo sidii loo waxayn lahaa ku fikirayo. qof walba wuxuu marayaa qiyaamada ka shabahaa xadiidkii dheeraa ee ka shaqeynaya shafaacada. markii loo tago qof walba oo horta maalinta qiyaamada qof kaloo hadlimay, ambiyada ayaa hadlaya oo u furan yahay. ambiyadana hadalkooda waxaa weeye allahuma sallim sallim, ilaahu aniga i badbaadi, ilaahu aniga i badbaadi. xataa marka dambe rasuulka looga yimaado, rasuulka ummadda u shafeeco. sidii oo kaleba maanta qof walba qofkaad ku soo baxdaa gacmuhu sii laabanaya, waa kaasii durkaya. marka qof walba wuxuu ku jiraa allahuma sallim sallim, ilaahu aniga i badbaadi ayaa lagu jiraa qof waliba.
wuxuu ka shabahaa in uu yahay qofkii insha allahu u dhintaay dadka ahlu iimaanka abaa badbaadi doono oo loo rajayn inuu shahaado u noqdo cudurkani qofkuu dilo waana yowma laa yanfacu maalun walaa banuuna ila man ata allaha biqalbin saliim oo qiyaamada ah qofkii ahlu iimaan ahaa ayaa maalintaa badbaadaya sidaas daraaddeed bay culimmadu yidhaahdeen cudurkan qofka u dhintana waxaa loo rajaynayaa inuu yahay qof shahaado ku dhintay ugu dambaynta waxaan rajaynayaa inaan ilaahay subxaana wa tacaala cudurkan uu toobo ummadda u furo yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi towbatan nasuuxa albaabkaa dadkao dhan inoo furo ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala aan wax ka raadsanno rabbina aan u tadarucno rabbina ummadda ha ka badbaadiyo wajazaakum allahu khayr wabaaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu